الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دبلوك هذه هذا هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى مهدله inuu fududeeyay noloshan iyo nimcooyinka badanayna siiyay. sida uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye sheegay, waxaanu halka u nimi wafdiga yagani gurmad ayaanu ahayn xaaladan gobolka Togdheer ku soo korodhay iyo xanuunkan shuban biyoodka ayaanu u nimi inaanu muxuu ahaay kala qayb qaadano bulshada gobolka dareenkiisa iyo daaweyntiisa iyo gargaarkiisa intaba. xanuunka halkan ka dhacay maanta gobolka ka jira maaha xanuun hadda bilaabmay, xanuun ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan maanta wiigan ama toddobaadkan maaha. waa xanuun xukuumad ahaan aan xogaal ka nahay, cid walbana ugu xogaalsanahay. waa xanuun ilaahay qadaray oo aan la siyaasadayn karin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala keenay sidoo abaarta ilaahay inoogu sababay ayuu xanuunkan isagu inoogu sababay. waxa mudan inaynu ilaahay u noqono oo barino. waxa mudan inaynu gacmaha isqabsano oo isu gurmano oo muxuuha ma mudna inaynu siyaasadayno ama aynu wax ka dayno halkan dad buka oo shubmaya iyo wixii la mid ah ama dad abaaro tabaaleeyeen. arrinta muxuuha hoostaanu ka xariiqayna. waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii halkan ku geeriyooday wuu tacsiyeeyay. mar labaadna waxaanu uga sidnaa dadkii eheladii iyo qaraabadii tacsibaanu uga sidnaa. waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muxuu ahaayay isagoo oo socdaalkan xukuumad ahaan na soo dardaaray na soo diray. waxa aanu iyadana runtii bogaadinaynaa dhammaan howlwadeennadii caafimaadka ee ka howlgalay xakamayntii xanuunkan, oo ay u horeyso madaxda wasaaradda caafimaadka wasiirku hormoodka u yahay, maamulka caafimaadka gobolka iyo ka degmada. waxaanu u mahadnaqaynaa ururka bisha cas caalamiga ah oo gargaar weyn halkan keenay. xaruntanna xukuumaddu markii horeba xikmadda ay u dejisay halkan ay u doortay ay tahay in gobolada bariga oo dhan ay santar u noqoto oo laga hago oo looga gurmado. waxaanu bogaadinaynaa gudoomiyaha maamulka gobolku uu horeeyo gudoomiyaha gobolku, golaha deegaanka oo uu horeeyo duqa magaaladu, muxuu ahaa sidii ay muxuu ahaayay u shaqeeyeen ay isu garabsadeen dhammaantood waa bogaadinaynaa. waxa xanuunkan xalay tashir baanu qabanay madaxda wasaaradda caafimaadka, khubaradii iyo aqoon-yahanadeenii dhakhaatiirta ahaa iyo maamulka gobolka iyo degmada dhammaan waxaanu iskaga xog waraysanay heerka xanuunka uu marayo iyo xaaladda gobolka Togdheer. waxaa la soo bandhigay qorshe xanuunkan lagu xakamaynayo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog. manhiin qaran qorshaynu u leenahay. xanuunkan inagu cusma sidaan hadalkayga hore ku jirtay 3,970 qof ayaa xanuunkan u soo dhacay magaalada Burco oo xarunta soo booqday ama la keenay xarunta muxuu ahaayay karantiinka. tirada dhimatay waxa weeye waxa xogna lagu siiyay 740 qof inay yihiin. gobolka Togdheer xanuunkan muddo ku soo jiray oo xukuumaddu la tacaalaysay. waa ku bogaadinaynaa wasaaradda caafimaadka sidii ay uga shaqaysay. karantiimooyin baanu dibadda ka samaynay goobo badan oo ay ka mid tahay muxuu ahaayay goobaha xadka ee dalka oo dhan laga soo bilaabo ilaa iyo Boorame ilaa iyo muxuu Wajaale, Faraweyne, Beligubadle, Lebi Sagaale, Xaaji Saalax iyo Duruqsi, Xaaji Saalax, Balidhiig, muxuu ahaayay Qorlugud, Goljanno, Buuhoodle. intaas oo dhan xanuunkan ka soo dadweynaha bulshada dibadda gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada madaxda ka baxsan ku dhacay dad gaaraya 7,000 iyo dhowr boqol oo qof ayaa xanuunkaasi soo riday. 7,000 iyo dhowr boqol oo qof ayuu soo riday. dadkaas dhammaantu intii badnayd way buskadeen. waxa dhintayna waa noogna
lama siyaasadin karo dhimashada ilaahay baa qadara waynu dhimanaynaa qofba saacad buu dhimanayaa sida gudoomiye sheegay qaar baa TB u dhimanaya qaar baa wada xanuun u dhimanaya qaar baa mawtil qafla dilaa waxay dhintayna waa noogla kaleedeeda qarina mayno lamana buunbuunin karo lamana qarin karo nafa qarankan ka go'ay oo inaga baxay cidna ma qarin karto nafa aan inaga go'ayna waa dambi haddii dhimasho lagu xukumo oo aan ilaahay ku xukumay subxaanahu wa ta'aala dhimashada ilaahay baa xukuma lamana siyaasadeyn karo 10,000 iyo dheeraad tiro ku dhow 11,000 ayaa wasaaradda caafimaadku la dabaalatay inay ay daweyso oo ay ka kiciso xanuunka waa ku bogaadinayna waa wax qabad weyn waxaanu runtii tirooyinka u sheegi weynay inta badan inaan dadka walwalgelin marka la yaabo 10,000 qof buu xanuun ku dhacay inay walwalgelin haddana waxaan anigoo warbaahinta uga faa'iideysanaya shacbiga gobolka Togdheer waxaanu leenahay meel ma joogno marxalad warw qarin mayno in xanuun ina hayo inuu shuban gobolka ku jira qarin mayno inuu shubanku wax dili kara qarin mayno waxaanu seenahay meel khatara oo red ah mari mayno xaaladda gobolku ma taagna iyo heerka xanuunku meel khatara oo nagu kalifta inaanu qaadano talaabooyin adag oo ay ka mid tahay gobolka inaanu baddow ka dhigno waxa soo galay inaanu joojino cid ka baxday inaanu mamnuucno waa talaabooyin furan xanuunkan siyaasadda buu leeyahay caalamiga oo lagu la dagaalamo marka muxuu ahaa weli ma gaadhin heerka wuxuu marayaa heer yalow ah oo aynu ku dagaalami karno xakamayn karno iyadoo noloshu caadi tahay waxaanu u baahannahay 3 arrimood kow kahor talaabooyin fiican oo kahortaga prevention waxa afka qalaad lagu yiraahdo waxaanu u baahannahay dadka xanuunku ku dhaco uu helo treatment fiican ama daweyn wanaagsan inuu helo oo la keeno goobaha caafimaadka loogu talagalay waxaanu u baahannahay wacyigelin muxuu dadka garaadkooda kor loogu qaado oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo awareness 3 talaabo ayaynu u baahannahay shirkii xalaytana 3daas budhigu ahaa go'aamo badan oo xakameynaya oo ka hortagi kara cudurkan baanu xalayto isla qaadanay maamulka gobolka iyo bahda caafimaadka ee gobolka oo ah qorshaha dhow ee xukuumaddu ay ka leedahay cudurkan koow waxa kamida in nadaafadda guud ahaan xoog la saaro gaar ahaan meelaha xanuunku ka dhalan karo kawaanada sariibadaha meelahaas oo dhan xilkaasi wuxuu saaran yahay muxuu ahaa dawladda hoose ee burco ah hay'addii u idmadayd inay nadaafadda magaalada kor u qaado waxa muxuu ahaayay aanu isla qaadanay oo waxaanu isla qaadanay muxuu ahaayay xilligan ardada gobolka Togdheer maadaama magaalada xanuunkii ku jiro in fasaxii la siiyey la kordhiyo imtixaanaadkii qarankana waqti wasaaradda waxbarashada ay dib u dhigto si aynu xanuunka muddo gaaban aynu u dabargoyno waxa iyaduna kamida in wacyiga dadka kor loo qaado oo bulshada xoog loola hadlo oo sida looga hortagayo loo sheego waxa kamida in goobaha biyuhu ku jiraan iyo ceelasha biyaha iyo barkadaha kaloriin lagu shubo wasaaradda biyaha xilka haysa waa la bilaabay waa la wadaa hawlaha soo dhan waa hawla socda marka hawshan aan u nimaadno waa bogaadinayna xisbiga kulmiye qaaraanka uu ku wareejay wasaaradda caafimaadka lacagta waxa lagu isticmaali doonaa gunooyinka hawlwadeennada shaqaynaya iyo habeen iyo maalin gurmanaya iyo shidaalada ayaa loo adeegsanaya 2 bilood barjadkood bay soo gudbiyeen kharashkaas ayaa ka daboolaya bil muxuu ahaayay hawshan lagu xakameeyo waa ku bogaadinaynaa gudoomiyaha iyo xisbiga kulmiye waxa kale oo aan halkan kaga wareejinaynaa muxuu ahaayay wasaaradda caafimaadka isduwaha caafimaadka gobolka wasiirkiina inala joogo 270 kartoon oo dawo iyo qalab ka kooban oo gaariga dhabarkayga taagan oo aanu xukuumad ahaan gobolkan u keenay si xaaladdan ay gurmadka uga qayb noqoto ayaanu iyadana ku wareejinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.